xilkii laga qaaday oo aan go'aamiyey in maaragtay laga wareejiyo generaal cabdiraxmaan laba goole oo ahaa commanderka ama taliyaha ciidanka liyu booliska waxaa kaloo isna aan samaynay isku xandhayn ku saabsan mas-uuliyiinta ugu sarreeya ee liyu booliska iyo booliska caadiga ayaan samaynay iyo dhowr xil oo kale oo muhiim ay tahay in la magacaabo si shaqooyinku u kala socdaan inta la bilaabayo tashigii ballaadhnaa ee ku saabsanaa dhisidda kabinetka hadda waxaan idin akhri doonaa magacyadii dadkaas waad mahadsantiin taliyaha liyu booliska waxaa loo magacaabay maxamed cabdi mowser ku-xigeenka liyu booliska waxaa loo magacaabay colonel cabdi xasan muuse maamulka liyu booliska waxaa loo magacaabay colonel bashiir aw xasan logistikada liyu booliska waxaa loo magacaabay colonel termani maxamed nuur sirdoonka liyu booliska waxaa loo magacaabay colonel mukhtaar sheekh xuseen amiin intaasi waa dhanka liyu booliska isbedelada lagu sameeyey taliska sare ee biliska liyu booliska waxaa kaloo maanta magacaabay commissionerka booliska deegaanka oo noqon doona generaal maxamed xasan cali waxaa kaloo isna la magacaabay taliyaha asluubta ee deegaanka colonel cabdikariim sheekh muuse waxaa isna aan ku noqonayaa commissionerka booliska markaan sheegay waxaan yidhi generaal maxamed xasan cali waxaa ku-xigeen u noqonaya oo isna la magacaabay maxamed cabdi gurey magacaabiddaas waa tala xidhiidha dhinaca ammaanka booliska iyo hay-adaha ammaanka weeye xafiiska madaxtooyada waxaa loo magacaabay khadar jigre aadan waxaa kaloo la magacaabay duqa magaalada jigjiga si loo buuxiyo kaalinta bannaan ee hadda jirta garaad cumar dool xirsi intaas ayaan hadda ku koobaynaa magacaabidda degdega ee loo baahan yahay si kala dambeynta iyo nidaamka usii socda